inkastoo xiriir walbaaba uu leeyahay waqtigiisa iyo waayihiisa haddana waxaa jirta xaalado badan inay ka hor yimaadaan caqabado markaad miisaanka saarto ku jahwareeriya ayna adag tahay marar badan inaad xal u hesho haddaba waxaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa saddexda qalad ee waaweyn ee raggu ay galaan marka gabadha uu la socdaa ay ka aamusto qaladka koobaad ee rag badan ay sameeyaan waa fariimaha iyo wicitaanka badan ee isdaba jooga ah waa marka hore ee markaad fariin u qortay ama aad wacday haddaysan telefoonka kaa qaban ama fariintaada aysan ka soo jawaabin halkaa ku jooji micnaheedu maahan xiriirka ka bax laakiin fariin dambe ha dirin wicitaan dambana yaysan dhicin way dhici kartaa inay xanuunsan tahay way dhici kartaa mushkilad kale inay haysato way dhici kartaa inaysan badoonin waqtiga inay kaa qabato sababtii doontaaba ha jirto inta badan raggu waxay ku mashquulaan in ay fahmaan dhibaatada jirtaa maxay tahay waxaa laga yaabaa inaad qorto maxaan kuu dhimay ma dhib baa jira maxaa kugu dhacay waan ku baryayaa telefoonka iga qabo waxyaabahan dhammaantood marka la isu geeyo marba marka ka dambaysa qiimaha agteeda aad ku leedahay bay hoos u dhigayaan marar badanna waxaa dhacda sidan una fiirso waxaa dhici karta markay kugu soo celisin inaad su'aalihii bartii ka sii wado oo tiraado maanta dhafariiman kuu soo qoray ma arkin miya ku tiraado waan arkay oo koolkayga ma arkin miya waan arkay oo markaad aragtay maxaad iigu soo celin weyday oo ku tiraado ma qasabba adigu meeshan weeye marka meeshan u socdaa inaad xanaaqda dhacaysa labadiinu inaad murantaan muranka adaa garab daran labadiina inaad murantaanba inaad isla gaartaan ma aha fariintii aad u qortay hal mar inaad ku ekaatay ahayd halkii marood wacdayna inaad ku ekaatay ahayd iyadana ka horsugto inay ku tiraahdo maqasabba inaan kugu soo celiyo waa booskaad adigu isdhigtay Soomaalidu waxay tiraahdaa lax walbaba meesha isdhigtaa lagu gowracaa wicitaankaagan tirada badan ee fariimaha canaantu ay ku dheehan tahay ay daba yaalaan waxay keenaan ixtiraamkay ku haysa inaad weydo si marka ixtiraamka ay ku haysa uusan meesha uga bixin weenad marka hore adigu naftaada ixtiraamta oo seed isu ixtiraamaysa haddaad hal mar wacday hal fariinna aad qortay inaadan wax kale ka dabageyn ilaahu meeshan bari ka soo wareegto iyada kugu soo celin doonta hadday nooshahay hadday dhimato ama waxay dhaceenna waad maqli doontaa si aad ku maqashaba muhiimaddu waxay tahay inaad fahanto dumarku sidoodaba imtixaankoodu ma dhammaado waxaa laga yaabaa islaan 60 jira inay odageeda hadda waqtigan ay weli imtixaan ku hayso waxaa laga yaabaa xaaladaha qaar inay ku tijaabinayso inaad ragga kale la mid tahay in kale ragga maxaa keena qaar inay gabari xoog u jeclaato ka hari weydo ninna intay wax yar la sheekaysatay markaba ka cagwareejisa ama ay khiyaanto waayo ninna wuxuu fahansan yahay qaabka loola dhaqmo ninna ma fahansana midda labaadna waxay tahay inaad xanaaqdo isjahwareeriso xaaladaha qaarna ay dhici karto hadalla waali ah inay ka tagaan waa marka koobaad horta caga dhigo gabadhan ragga magaalada kula jooga kama xigtid xaaskaaga ma ahan rag badani sidii inay gabadhu xaaskiisa tahay oo kale isu siiyaan tana waxay keentaa jahwareer fara badan in mar walba aad ka fakarto ama ay ku khiyaantaa ama nin kale la sheekaysanaysa oo xataa hadday la sheekaysato ma taasaa shaki kaaga jira inay dhici karto waa macquul way dhici kartaa qof waxaad noqotaa nolosha wajiyadeeda kala duwan aqbali kara tani waa qayb kamida wajiyada nolosha haddii gabadhu ay nin kale ka shukaansato ama nin kale ay la socotood ogaato waa inaad ku tala gasho sidii naftaada aad u daryeeli lahayd sidii naftaadu ay go'aan uga qaadan lahayd haddii xaalad noocaasi ay ku soo wajahdo raggu badi tan uma diyaarsana waxaanad ogaataa hadba isa siintaadu inta ay la eg tahay baa qalbi jabkaagu leekaada tusaale ahaan waxaan iraahdaa xarig meel dheer ku xiran haddaad gacanta ku qabsato iska soo laadlaadiso intee in leeg bay kula tahay inaad ku dheganaan karto muddo aad u kooban waayo marba marka ka dambaysa gacantu ku sii jari haddii kale inaad sii daysaad ku qasbanaan mararka qaar waxaa dhacda qofkan aad isku dhajinayso isku dhajintiisu inay keento marba marka ka dambaysa in qalbigaagu uu sii dilmo adigu hadba ixtiraamka iyo kalgacalka naftaada aad u haysaa inta uu la eg yahay bayna ku xiran tahay qofka ka go'itaankiisu haddaad naftaada ixtiraam badan u hayso haddaad naftaada jeceshahay waayo dad badani waxaa mararka qaar muuqata in markaad u fiirsato dhaqankooda naftooda jacaylka ay u hayaan uu aad u yar yahay waayo naftoodii oo silacaysa oo rafaadaysa oo cuntadii ka go'day oo hurdadii ka go'day buu weli wuxuu ku leeyahay qofkaasaan sii jeclahay mar haddaad aragto naftaadu inay u silacayso u rafaadayso u murugaysan tahay qof la'aanta faraxsan qof la'aanta nool qof la'aanta noloshu aysan ka qasnayn waxaad ogaataa taa macnaheedu waa naftaada ayaadan jeclayn markay noqoto qofka aad la socoto haddaad rabto qaabka maskaxdiisa u fakarta inaad ogaato waxaad u fiirsataa hadalka afkiisa ka soo baxaya taa miisaanka ku saar
haddaad rabto qofka qalbigiisu meesha uu jiray inaad ogaatana waxaad u fiirsataa ficilkiisa midda saddexaadna waxay tahay raaligelinta xad-dhaafka ah qofka bini'aadamka ee qalad waa ka dhaca raaligelinna wuu bixiyaa laakiin labaduba mar bay dhacaan haddii qofka aad ka raaligeliso wixii kaa dhacay mar kale ha ku celin intaa wixii ka dambeeya waxay uun tustaa inaadan naftaada ku kalsoonayn waayo qalad baa kaa dhacay bini'aadam baadna u tahay qofkii waxaa tiri ka raalli noqo waxaa laga yaabaa inaad hadiyad u keento waxaa laga yaabaa inaad wanaag kaloo dheeraada u samayso laakiin intaa kadib inaad adigu hadalkii ku celceliso hadda ka hor baan wax kuu geystay maalintaa inaan saa yeelo ma ahayn mar kale iyo markan aad taagan tahayba hadalka halka mare aad tiri qofka raalli noqo ku eke ha soo celcelin marar badan waxay keentaa raaligelinta tirada badani in qofkan wixii uu isku dayay inuu iloobo inaad adigu xusuusiso oo caradii iyo xanaaqii iyo wixii jiray aysan badhamaan waxaana laga yaabaa inaad isleedahay qofka dareensiye qaladkan kaa dhacay sida aad uga xuntay tani waxay keentaa in raaligelinta aad soo celceliso ilaa marka dambe qofku uu kuu arko qof aan naftiisa ku kalsoonayn qof calaacalaya qof aad u liita miyuunan qofku go'aan lahayn miyuunanba ismaqlin mid kalena jirta haddii qofka qaladka aad ku qabato oo raaligelin uu bixiyo iyo haddii inta kuu yimaado uu kuu qirto ku yiraahdo waxa iyo waxaasa iga dhacay raalli noqo labay kala tahay marka qofka qaladka aad ku qabato oo uu raaligelin bixinayo macnaheedu ma ahan in uu qaladka ka xun yahay wuxuu ka xun yahay ogaanshahan aad ogaatay qaladkan qofku uu ku geysanayay taa maskaxdaada ha ka dhaadhacdo laakiin qofku marka uu ku yimaado oo ku yiraahdo qaladkaas iga dhacay raalli noqo waxaan aaminsanahay qofkaas waa qof lala dhaqmi karo wuxuun baa laga soo reebi karaa laakiin marka aad ku qabato calaacalka iyo isbihinbihinta iyo oohinta dhammaantoodba waxa ka keenaya waa ogaanshaha aad ogaatay qofkani qaladka uu ku jiray maahana sida caadiga marka qaladkan uu samaynayo ama kuu geysanayo miyuu murugaysnaa waa maya miyuu ooyayay waa maya ilma tif miya ka soo tiri waa maya miyuu qalbi jabnaa waa maya dhib kuma haynin isagoo faraxsan buu samaynaya waxa kan waa sababtan u iraahdo qofka haddaad khiyaano ku qabato weji aan ka ahayn inaad kala hartaan malahan waa inaad taqaano sida qof go'aan looga qaato oo naftaada horay u socod loo yeesho qofku hadduu khiyaano iyo isdabamarin iyo been tusaale ahaan maanta gabar baad la socotaa ama maanta nin baad la socotaa sababta kugu kalifi karta inaad been u sheegto maxay tahay maxaad ka cabsanaysaa runtaada qofkan u sheeg hadduu kugula joogay ha kugula joogo hadduu tegayana ha tago waayo qofkaagii saxda ahaa ee runtaada kugu rabi lahaabaa imaanaya haddii kale qofkan baa waddadii kaa taagan qofkan baa albaabkii kaa awday adiguna muddo waxaad isku qancin waayo guurar badani maxay la burburayaan waa beenta la isku sasabayo marka hore qof walbaaba runtiisiibuu ka dhuuman qof walbaaba waxa uu yahay qofkan uma sheegi karo hadhowbaa laakiin wax walba soo ifbaxayan markaasaa la isweydiinoo la odhan talow qofkan horta qofkaan aqaanay maba yahayba waayo dabeecadahan iyo waxa kan waa wuxuu qarsanayay haddii marka hore ee la wada socdo qof walbaaba qofka kale uu runtiisa kula socdo waxbaa hagaagi lahaa reeruhu waa degi lahaayeen laakiin beentan tirada badan iyo lugooyadan iyo khiyaanadan iyo isdabamarintan baa in badan waana kayd meel ku yaala haddaad maanta wax isdaba marinayso dad gabar tahay ood rag badan lu goynayso waxaad ogaataa wax badan baa ku sugaya haddaad nin tahay ood gabdho badan lu goynaysana waxaad ogaataa waa wax kaydka ku yaal nafsigu ma haro maalin buu ku qaban goor ku qabtaba markaan sidaa ku leeyahay macnaheedu ma ahan inaan iska hadlayo waxyaabo fara badan Soomaalidu waxay tiraahdaa umulisadu siday wax u ogtahay waxuma sheegto wax fara badan oonan halkan idin kula wadaagi karin baan ogahay qisooyin badan oo la ii fasaxay inaan ka sheekeeyo laakiin aanan idinka sheekayn baa jira nafsigu waa wax jira waxa aad geysanaysana waxaad ogaataa maalin ay noqotaba kharaarkeeda waa dhadhamin doontaa adigu ha adkaysan waayin haddaba dhammaantiin asxaabteeda intaynu muuqaal kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh